kulan wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba khiyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kasta oo dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteena faaqidaada waxaana daawadayaal barnaamijkeena ku dul istaagi doonaa wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalkaasi Ethiopia qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Ilay ayaa waxa fariimahan jabaada iyo waliba kuwa baraha bulshada ay u mareynayaan u soo diraya xoogga gafaano iyo waliba OLA oo qolo walba ay ku eedeynayso in ay u dhibaato u geystay xilliga uu madaxweynaha ka ahaa dowlad deegaanka Soomaalida dhanka kale gabadha ka shaqeysa nidaahdee dhanka xuquuqul insaanka ayaa sheegtay in madaxweynaha hore dowlad deegaanka Soomaalida uu u baahan yahay in cadaalad la horkeeno maadaama dad aad u fara badan oo u dhashay dowlad deegaanka Soomaalida waxa suuq ka geystay haddaba ilaala ayay dowladdu siisay si loo ilaaliyo ambaba looga ilaaliyo xoogga gafaano iyo waliba OLA oo ay suuragal tahay inay u soo duusaan haddaba xaaladii ugu dambeeyay dhanka Cabdi Ilay waynu ku faaqidi doonaa dhanka kale wararkii ugu dambeeyay ee xoogga gafaano iyo waliba ciidamada makalakayaaga ayaa la tilmaamayaa inuu dagaalo xoogan ay ka dhacayaan deegaanka Amxaarada inkastoo ciidamada makalakayaaga qaar kamid ah ay isu dhibeen xoogga gafaano haddaba warbaahinta waxyaabaha ay ka qoran iyo waliba dalkaasi Ethiopia wararkii ugu dambeeyay ayaynu ku qaada dhigi doonaa dhanka kale maamulka Somaliland iyo dowladda Ethiopia xiriirkooda si xumaanaya ayaynu daawadayaal sidoo kale ku qaada dhigi doonaa barnaamijkeena dalka Soomaaliya waxay imaaraadku keenayaan 1500 calooshoodu shaqaystayaal cadaan ah oo la tilmaamayo in ay ka geysan doonaan falal gurracan dalka Soomaaliya taasi oo aan laga warramin inay ogolaan doonto dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo in kale dalka Yemen ayay sidoo kale geyn doonaan 1500 oo cadaan ah kuwaasi oo dhibaatada haatan ay ku hayaan dalka Yemen usi laba jibaara waa sida ay xogtu nagu soo gaadhay haddaba barnaamijkeena ayaad sidoo kale kaga bogan doontaan cadaanka la keenaya dalka Soomaaliya ee doonaya inay qalalaasada iyo waliba fadqalalaha ka abuuraan dalka Soomaaliya maxaa ka jira in Mahad Salaad xilka laga qaadi doono khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay isaga iyo madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud haddaba qodobadaas iyo kuwa kale xiiso badan ayaynu daawadayaa ku qaada dhigi doonaa barnaamijka waxay la falanqeyn doona hadduu rabbi idmo Dr. Shide iyo waliba Suldaan Gooni oo gadaal kaga soo biiri doona waxaana daawadayaal idinka codsanaynaa inaad barnaamijka sii share gareysaan si uu meel fog u gaaro idinkoo aad iyo aad u mahadsan soo dhawaada ayaanu idin leenahay mar kale daawadayaal waxaan marka hore u yeerayaa saaxiibka Shide soo dhow marka hore studio ku soo dhow waan dhawaay saaxiibi qolyahan faano ee hanjabaad iska soo dabadiraya inkastoo ku arkayna baraha bulshada qaybaha TikTok iyo waliba dhanka kale warbaahintooda ee afka faano ku hadasha waxay tilmaamayaan in uu madaxweynaha hore dowlad deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar uu kaniisadihiina gubay qaysasna uu laayay sida daradeedna ay suuragal tahay inay kaga arsadaan magaalada Addis Ababa caasimadda dalkaasi Ethiopia olana sidaas la eg bay leedahay waxay leedahay dad fara badan oo Oromo ayuu xasuuqay dhanka kale waxa la tilmaamayaa in hay'adda xuquuqul insaanka gabadhu dhalatay ay leedahay gabadh ka shaqeysan iraahda ay leedahay magaranaysa ninkaas waa in la hor keeno cadaaladda marka maxay kuugu muuqataa xaaladda Cabdi Ilay hadayna ku horeeyay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Farogodow 24 saac la soo dhaafay baraha bulshada waxa dhaxyaacay qoraallo iyo muuqaallo ay soo direen xoogga gafaana ee dagaalka culus kula jira dowladda Ethiopia iyo xoogga Oromada ee OLA oo ayaguna ah kuwa dagaalka kula jira dowladda Ethiopia marka faana iyo OLA fariinta ay soo dirayaan Cabdi Ilay iyo hanjabaadaha ay soo dirayaan horta dhan way ku mahadsan yihiin oo inay hanjabaad soo diraan oo nin aan ku digin kuma dilin baa la yiri adsa waxaan ogsoonahay ammaankeedu inuu aad u xun yahay oo la isku haleyn karin laakiin waa digniin ay Cabdi Ilay u direen inuu maartaay ilaalo xoogan qaato oo ammaankiisa lagu soo dowladda Ethiopia cadeyn u noqonaya in Cabdi Ilay ammaankiisa si loo ilaaliyo la xoojiyo laakiin faano iyo OLA Cabdi Ilay Cabdi Ilay dambi wuxuu ka galay dadka Soomaaliyeed dadka la raba inay hanjabaan riboodyo qoraan Cabdi Ilay si maxkamad loo keen cadaaladda loo horgeyn la boqolkii milyan oo qof ku dhaawacay ku baabiye ka dhigla waa dadka Soomaaliyeed laakiin haday Axmaar iyo Oromo wax ka sheeganayaan markay halka gaadho Ethiopia bas leeyihiin ba Ethiopia maya faana markay faana iyo ay Oromo ka hadlayeen Cabdi baan la waxyeeleeyay anu ilaa waxyeeleen ma la idinka waxyeeleeyay idinka dadka baabiyay idinka dadka dhigooda xalaashaday
idinka dhul dad leeyahay cunay ayagu waxay ka cabanayaan afar maxaan ka wadaa bishii 8aad afarteedii markii August ha uu cabdi dhacayay dhalinyaradii heegada ahayd bilaqadii ay geerteen bangiyadii iyo kaniisadihii la weeraray dhibaatay la geystay ayay leeyihiin cabdi ilayna looma xukumin oo ma artay waxaan rabnay dadkaasi dadkii la laayay qaysaskii la laayay kuwii dhagax buur lagu dilay iyo kuwii jigjiga lagu dilayba inay ma artay cabdi ilay laga abaal mariyo ayaan rabnay laakiin haday dawladda Ethiopia ay gabi ahaan kiiska laashay cabdina ay dambi ku weyday arintaas waxay leeyihiin cabdi anaga dadkaasi uga argudayna anaga uga argudaynay leeyihiin laakiin waxaad moodaa inay iloobeen Ethiopia dhan wixii ka dhacay 27 sano Tigray xukunka hayeen ilaa waqtigan abi uu joogo dadka Ethiopiaanka dilka iyo dhaawac iyo dagaalka iyo qaxa iyo burburka ka jira mid cabdi ilaa kale mid waxa tusay aan waxa arkay cadaalad darro iyo inay yihiin nimandeena nacayb Soomaaliyeed iyo odaygaasi dambi xog galay Soomaalida loo baahan yahay sidii maxkamadu keensan lahaayeen oo dadkii uu dhibaateeyay cadaalad u helay inay raadiyaan laakiin inay Ethiopian ay cabdi wax ka sheegaan aanu arintaas markay gaadho cabdi baa saxsan ma leh wala in ka badan inuu naga dilaa fiicneed in ka badan inuu naga xasuuqo ayaa fiicneed faanana waxaan leeyahay fagaaraha ayaa la iskugu iman doonaa inay nacaybka ay Soomaalidu qabaan uma midaasina ka turjubaysa laakiin waxa ayagu isu geysanayaan ma arkaan Soomaalida teeda ay arkaan faanadu marka waxaan leeyahay anigu intii in laga dilay in ka badan in laga dilaafan in jigjiga in laga raro iyadu waxay leedahay xuduudda dawlad deegaanka uu la wadaago deegaanka Oromada ayaa dad aad u fara badan lagu laayay marka maxay kula muuqatayada oo wala waarun way jirtaa waqti cabdi ilaa xukunkiisa bar waqtiyada gabagabada waxa waxay nimankii TPLF-ta sameeyeen in labada qowmiyadood waa Oromada iyo Soomaalida ay dabka isugu dhibaan bilaabeen oo dagaal culus oo xuduudkan ka dhacay Bali gobolka Bali iyo maartay deegaano badan oo dhankan Baabili ilaa Afdheer iyo maartay Liibaaniya dagaal culus baa ka dhacay waagaas Liibi boolisku tacadiye geysteen been maaha waxay tacadiye u geysteen dad Oromo aad u tiro badan ay halkaas ku barakiciyeen hay'adda WHO iyo kuwan Human Rights Watch waxay sheegeen in dadka halkaas waqtigaas ku barakacay inay wala 30,000 oo qoys in Liibi boolisku barakiciyeen meesha ay dad aad u tiro badan halkaas ku laayeen midaas way jirtaa record kara way gashay waxyaabaha Oromadu ay aad ka uga xanaaqsaneed baa laakiin cabdi ilay oo dhibaatadaas geystay dadka xidhay Ethiopia baa Soomaaliyeed xidhan cabdi ilay dambi Soomaaliyeedna looma xidhin baday dambi Soomaaliyeedna looma xidhin cabdi ilay Ethiopia baa harko cad ka kaxaystay jigjiga aad soo la tagay ayaga maxkamadina ayagu aha maxbuus u aha ayaga baa inta isla yaabeen dambiga ay galeen dadkooda ka galeen yeetii cabdi u cuntami weeday waxay dhantaan cabdi hadii la suxun qaabo inagana waa in la qaabada kuwa inaga dambeeya dambiga waa la saari doona Ethiopia waa wada dambiile madaxda Ethiopia ma dambiile Tigray baa dambiile abi baa dambiile waa la kala dardaran yahay abi inuu cabdi xukumo oo ma awood mun u weyn cid ku horsaagteen ma sharci ciidana mare laakiin wuxuu la yaabay asagu wuxuu ku jiro tiisaab la yaabay dhiiqadu ku jiro la yaabay cabdina saas ku yiri inuu dambiile ma tiid hadda xogaha naga soo gaaraya dadka waxay sheegayaan cabdi ilay inuu u gaaraan 40 askari oo adu maxay 140 askari ma la yiri ciidamada aad u tiro badan ciidanka gaarka ah madaxtooyada ayaa la keenay gurigiis oo la arkay sida dadka la degan ay sheegan muuqaalada dad aad askar aad u tiro badan yaa la keenay oo qabaalo lagu keenay oo cabdi ilay ilaalinaysa balay amaankiisa marka dhawaaqan ka soo yeedhay xooga mucaaradka waa gartay kolleyde waa suuragal nimanka amxaarada ah way ku xoog badan yihiin magaalada Addis Ababa Oromada iyada ba deganba marka in ay